waxaan masaajid in sheekhu darsi ka akhrinayo maka ka dhigaysay qisadu waxay leedahay gabar ahludiin ayaa waxaa jeclaaday canug ciyaal suuqa reer maka gabadhii uu doonay waxay tiri ciyaal suuqa ma guursado aniga ma ku doonayo markaasuu wuxuu yidhi culummaa noqonayo hayo noqon qamiis gaaban intuu soo iibsaday oo garkii daystay uu safkii hore caday la istaagay maba ka tegayo masaajidka muddo kadib gabadhii waxaa lagu yidhi ninkii wadaaduu noqday mudawic ay dhahan ayaga mudawicuu noqday ninkii de saas hadday tahay waa guursanaya hayeba waa isguursadeen bil markuu la joogay uu ciyaal suuqnimadii ku laabtay markaase waxay tiri aawo wadaadnimadii maya waxaas waa laga soo tegey waa la hadashay berigii dambe uu soo kaxeeyey gurigeedii uu keenay gurigeedii markay gashay warqad u dhiibtay warqaddii bannaanka markuu la tegay uu akhriyey waxay leedahay mar dambe ha ii iman saasay warqadda ugu qortay mar dambe ha ii iman waxaa ku yaalla jiddo xaafad karantiino la yidhaahdo waxaa dega dadka afrikaanka waxaa aad u dhex yaalla sixir marka iyaga dhexdooda ayaa wax isku samaysta ummadda kalena war kama hayso xaafaday u gaar yihiin waayo ninkii wuxuu yidhi islaantii waa iga tagtay maxaan sameeya wax karantiino tagaa la yidhi karantiinu tegey odayuu tegey wuxuu yidhi haweenaydii baa iga tagtay ma soo celi karta anaa soo celinaha lacagkeedu lacag buu ka qaaday wuxuu yidhi anaa si degdega guriga ku celinayo usbuuc iga warso usbuuc kadib oo la hadlo wuxuu yidhi hay hawshii ka warran gurigii ka fiiriyo guriguu tegey wax jooga ma waa soo laabtay wuxuu yidhi guriga wax jooga male wuxuu yidhi wax awooda u malihi anigu intaas ka badan yidhi maxaa igula talinaysaa markaasuu wuxuu yidhi aniga sixirkayga heerkaas ma gaarin laakiin haddaad rabto hindiya aad yaa ii sheegaysaa hindiya hebel ee hindiya jooga u tago hindiyu diyaarad u raacay ninuu u tegey wuxuu yidhi haweenaa iga tagta lacag intaasoo la keenuu yidhi anaa soo celinayo lacagtii uu bixiyey imisaa qaadanaysaa usbuucaan qaadanaya usbuuc kadib wuxuu yidhi taleefon dir gurigii in la joogo taleefonuu diray waxba ma joogaan guriga besuu yidhi aniga wax kale ma qaban karo haye marka maxaan sameeya markaasuu muftiga u tago muftigaa sixirka yani shaydaanku weyn sixirka waayo waxbuu joogaa meel hebeluu joogaa ninkii u tegey arrintaasaan rabaa buu yidhi lacagihii laga qaadi jiray show lacag aad uga badan iyuu ka dalbay lacag intaasa laakiin buu yidhi lacagtii buu ka qaaday usbuuc iga warso usbuuc markii dhammaatay buu u tegey ninkii waa maxnaaqsan yahay war maxaa jira war naga tag buu yidhi ciidankii waa naga laysay aad suuq baa tahay ciidankaygiina waa dhammaysay buu yidhi oo maxaa jira 100,000 ciidan gaarahaan garuu yidhi wax ka soo noqdana ma laha oo maxaa ku dhacay guriga gabadhu ay joogto suuratulbaqara lagu akhriyaa ciidankaygii oo dhanna gam baa laga dhigay khasaaradana ii soo geysay khasaarad ii geysatay taas ku yidhi marka quraan akhris ayaynu ku sii ordin haweenku ee guryahooda suuratulbaqara intay bartaan ha ku akhristeen bas quraan akhrisaan tegey waa lay suuxiyey lugaha layga xiray sanka waxa la ii saaray wax baahiyo looma qabo bas
quraanka ha barteen suuratul baqara ha barteen hana isu akhriyeen iyagu guryahoodana ha ku akhriyeen hana ka saareen asbaabaha shayaadiinta soo jiida هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد